soo dhawaada khiyaaray Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay wada hadallo ku dhameyso dhibaatooyinka waddanka ka taagan. Dhanka kalena Komishanka Xuquuqda Aadanaha Itoobiya ayaa codsaday in la dabagalo isla markaana la korjoogteeyo shakhsiyaadka u xidhan dawladda ee ku xidhan xarunta ciidamada tababarada ee lagu magacaabo Awaash Arba halkaas oo ku xidhan yihiin dad loo haysto arrimaha deegaanka xamarada ka taagan. Labada qodob ayaan habeenkan caawa eegaynaa. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa toddobaadkan maalintii Arbacada ahayd waxa uu kulan la yeeshay ururka mas'uuliyiinta ururka shaqaalaha Itoobiya oo ay ka wada hadleen ururkaas iyo shaqaalaha Itoobiya sidii horumar loo gaarsiin lahaa. Haddaba madaxweynaha ururka oo lagu magacaabo Kasahun Folo ayaa waxa wargeyska reporter u sheegay in ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo qaarkood ay yihiin amni darrada waddanka ka jirta iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan shaqaalaha. Waxa uu sheegay in shaqaalahaasi tusaale ahaan dagaalkii waqooyiga waddanka ka dhacay in ay dhibaatooyin fara badan ka soo gaareen shaqaalaha kana hadda ka socda deegaanka Axmaaraduna soo kala shaqaalaha dhibaato weyn ka soo gaaro. Waxa uu sheegay marka ay ururku ay amaaneen in hawshii ka dhacday waqooyiga waddanka qaabkii loo xaliyay nabadgelyada ahayd tallaabo sax ah oo ururka shaqaalaha Itoobiya uu soo dhaweynayo. Sidoo kale waxa ay sheegeen in waqti xaadirkan dhibaatooyinka waddanka ka taagan gaar ahaan deegaanada Oromada iyo Axmaarada in iyadoo laga qaadanayo waayo-aragnimo si Tigray oo kale loo xaliyo. Waxay sheegeen in la sii xoojiyo wada hadallada u dhaxeeya dawladda iyo ururka ONAG iyo waliba sidoo kale jabhadda Fano. Ra'iisul Wasaaraha haddaba oo su'aalahaas ay u soo jeediyeen madaxda ururka shaqaaluhu ka jawaabaya waxa uu sheegay in nabadda si kastaba ha lagu hele in loo baahan yahay in la qaato dawladduna ay nabadda waxay ka jeceshahay aanu jirin. Waxa uu sheegay ama sheegay ururadu in shaqaale fara badan oo kamid ah ururka shaqaalahan oo shirkado kala duwan u shaqeynayay in ay dhibaatooyin ka soo gaareen jabhadaha goobaha kala duwan ka dhaqdhaqaaqa ha ahaato Axmaarada ha ahaato Oromiya qaarkood la afduubto lacago fara badan la weydiisto oo madax furasha taasna ay dhibaato ku tahay shaqaalaha iyo noloshooda. Wasaaraha oo ka jawaabay su'aashaas waxa uu sheegay in ayna jirin cid nabadda neceb haddii ayna xaaladii buu yidhi nagu qasabto inaan dagaal galno mooye. Annaguna buu yidhi dawlad ahaan waxaa naga go'an inaan dhibaatooyinka waddanka ka jira ku xalino wada hadal. Idinkuna buu ku yidhi waa inaad xoogga saartaan wax soo saarka iyo waliba hay'adaha iyo shirkadaha kala duwan u shaqeysaan in shaqaalihiinu ay noqdaan kuwa ralmadila. Waxa uu sheegay marka hadiiba waddanka waqti xaadirkan xaaladaha ka jira awgeed ayna u jirin faragelin caalami ah in wada hadal lagu xaliyo dhibaatooyinka waddanka ka jira siba deegaanada Axmaarada iyo Oromada sabab ka hor istaagaysa inaanay jirin. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ka dawlad ahaan ay aad u soo dhaweynayaan in nabad lagu xaliyo wax walba. Waxa kale uu sheegay in nabaddu soo timaado shaqaaluhuna ay role weyn ku leeyihiin taasna loo baahan yahay in iyaguna qaybtooda ka qaataan. Waxa kale oo ka hadlay ra'iisul wasaaruhu in dhibaatooyinka ka dhalanaya sicir bararka waqti xaadirkan dhibaatada ku ah waddanka in si loo xaliyo ay dawladdu ka fikirayso in shaqaalaha mishaarka yar qaata in cashuurta laga jarayo laga dhimo ama laga naquso si marka taasi ay ugu yaraan u noqoto mid dhibaatadaas sicir bararka ku keenayo ka dhinta. Qodobka kale labaad haddii aan u gudubno Komishanka Xuquuqda Aadanaha Itoobiya ayaa waxa uu dawladda ka codsaday in dabagal iyo korjoogteyn lagu sameeyo xaaladda dadka ku xidhan xarunta tababarada ciidamada ee loo yaqaan Awaash Arba. Saan la soconno tan iyo intii xaaladda degdegga lagu soo rogay deegaanka Axmaarada dad fara badan ayaa hawshaas loo xiray. Dadkan tiradooda ee Awaash Arba ku jira 53 ayay komishanku ku sheegeen kuwaasoo u badan madax siyaasadeed iyo wariyaal iyo waliba xubno ka tirsan baarlamaanka Itoobiya iyo maamulka Addis Ababa kuwaasoo sheegay in iyagu u xiran yihiin arrimo qowmiyadeed balse ayna garanaynin sabab loo xiray iyo cid soo xiratay intaba. Haddaba komishineerka
komishinka xuquuqda aadanaha ee Ethiopia ayaa waxa ay booqdeen isagii madaxdiisuba xaruntan lagu magacaabo Washarba halkaas ay kula kulmeen maxaabiis kala duwan maxaabiistan ayaa waxay sheegeen in qaarkood ayna ogeyn ba sabab loo soo xiray qaarkood in tan iyo markii la xiray aanay ka warhelin qoysaskoodii waxay ku sugan yihiin waxay kale sheegeen in qoysaskoodii aan la xiriiri karin telefoonna kula hadli karin meeshana ay tahay meel Cambia oo caasimadii ka fog taasna marka waxay ka codsadeen waa xubnahan xidhane in dawladda ay kala xajoodaan qaabkii maartay hawshan loo furdaamin lahaa dadka xidhan ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Christian Tadele oo ah xildhibaankii ra'iisul wasaaraha ugu baaqi jiray dad xasotaan inuu xilka ka dego waxaa kaloo ka mid ah Yohannes Bayalo oo isaguna siyaasi ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada isla markaana door weyn ku lahaa isbedelka ka dhacay waddanka 2018 waxaa kaloo ka mid ah isaguna in la yiraahdo Dr. Kasa Tashagar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Addis Ababa waxaa ka mid ah wariye Baqalo Alamraw oo isaguna iska lahaa barta YouTube-ka lagu magacaabo Alpha Media waxaa kaloo isaguna ka mid ah Abbay Zawdu xubno kale oo iyaguna fara badan oo halkaas ku xidhay iyo jira 53 ayaa maartay lagu sheegay tiradooda komishinka xuquuqda aadanuhu marka uu doodan soo gudbinay waxaa ka mid ah in xaruntani ayna ahayn xabsi balse ay tahay goob lagu tababaro ciidamada sidaa darteedna ay tahay goob kulul oo dadka maartay ayna sidan ku sii jiri karin goobahana ay yihiin goobo si ku meel gaar ah maartay loogu hayo haddaba xubnahan ayaa waxay ka cawdeen in xiliyadeeda soo qabanayay dhibaatooyin ay soo gaarsiiyeen askartii kala duwanada gacanta ku soo dhigaysay balse markii dambe ay hadda maartay xaaladoodu aad u wanaagsan tahay wax kale oo dhib ayna qabin marka laga reebo meesha oo kulul iyo waliba maartay inaanay la xiriiri karin qoysaskoodii sidaa darteed komishinka oo warbixin dheer ka soo saaray ayaa waxay sheegeen in xubnaha qaarkood ay xanuunsadeen oo xarumaha caafimaad loo geeyay Addis Ababa cusbitaallo kadibna ay ka soo laabteen waxayna sheegeen sidoo kale in arrimaha waddanka ka taagan darteed loo xiray marka waxay codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan leh hawshoodan loo xalliyo xabsigana ay ku sugan yihiin looga sii daayo akhyaare qodobadeenni habeenkan caawa aan ku talagalay intaas ay ku dilihiin tan iyo kulanta dambe nabadgelyo